waataa daawadayaal waxaan ku suganahay magaalada Minneapolis gaar ahaan saldhigga saddexaad ee booliska magaalada Minneapolis cabitaan ayaa la qaybinayaa. Thank you so much. Minneapolis waxaa ka muuqda burbur aad u xooggan. halkan waxaan ku arkaa cali indho iyo cali xaraare oo iyaguna soo shaqo tagay. waad mahadsantihiin. waa shaqo tag laba cali halkaas ayay sii socdaan. waa Home Cable iyo Somali American TV. goobo badan oo ganacsi ayaa burbur ka muuqda. xaaladda magaalada Minneapolis ma ahin mid qurux badan, laakiin dhinaca kale markaad ka fiiriso laakiin dadkii magaalada ayaa soo baxay isla markaana doonaya inay magaalada hagaajiyaan oo ay soo celiyaan bilicdii magaalada. dadkaasi waxaa ka mid ah dad Soomaaliyeed oo aan arkay iyagoo xaaqaya wadooyinka. sidaad ka warqabtaan halkaasi waa goob kale oo ganacsi. gudoomiyaha gobolka Minnesota markii uu arkay sawirada iyo muuqaalada magaalada waxa uu yiri magaalada waxay u ekaatay Muqdisho oo Soomaali ah iyo Baghdad oo Ciraaq ah. hadalkaasi dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ka carooday isla markaana emailo iyo fariimo isdaba joog ah u diray gudoomiyaha gobolka. laakiin isaga waxa uu sheegay in uu tusaale ahaan u soo qaatay maadaama Muqdisho ay burbursaneyd 30 sano ee la soo dhaafay, Baghdadna uu burbur ka muuqdo, dadkiisana uu la hadlayo. waxaa sharaf iyo qiimo leh ninkaasi aad arkaysaan inuu yahay nin Soomaaliyeed oo isagu hadba dhinac gacanta u taagaya isla markaana kala hagaya baabuurta. Sulaymaan ayuu ugu sheegay magaciisa. isaga ayaa isxilqaamay. ninkaas maadaama aad arkaysaan traffic lightkii iyo robotkii baabuurta kala celinayay inuusan shaqaynaynin. saaka ayuu soo istaagay bartaasi. waxaan u rajaynayaa isaga iyo qoyskiisaba inay wanaag ugu noolaadaan. waxaan sugayaa ilaa laga fasaxo qaybta shacabka. waad mahadsan tahay ayaa la leeyahay. waxaan rajaynayaa in annaga nala fasax markaan. waad mahadsan tahay Sulaymaan. waad mahadsan tahay maasha Allah. dadka dhan waxay leeyihiin waad mahadsan tahay. aad baad mahadsan tahay. jazaak Allah. sidaad u aragteen ninkaasi ayaa sidoo kale waxaad arki doontaan hooyooyin Soomaaliyeed oo nadiifinaya wadooyinka. tan waa qof muslimad ah, luqadda carabiga ayay ku hadlaysaa sidaad arkaysaan. halkan waa saldhigga saddexaad ee booliska. burbur xooggan ayaa ka muuqda. sida foosha xun u dilay ninkii madooba. saldhigga hadda gebi ahaan waa la gubay. burbur xooggan ayaana ka muuqda. halkaas waxaa iga muuqda target centerka. waa halkii uu ka bilowday mudaharaadka. aan iraade bilaqada. waa dukaankii ugu horreeyay la bilaqaysta magaaladani. sidoo kale dab la qabadsiiya. dadka waxaa lagu dhiirigelinayaa inay magaalada nadiifiyaan. ciidamadii booliska
gaar ahaan kuwa ilaalada qaranka ayaan arkaa oo iyaguna qayb ka qaadanaya nadaafadda. waxaad arkaysaan ciidamadii waaye. Thank you so much. nadaafadda ay ka qayb qaadanayaan. waa ciidamada kaydka qaranka. maanta ayaan ku arkay laba Soomaali ayaa ka mid ah ciidamadan. So I just want everyone to know the National Guard and the Army is here, and they're here for our protection. They're not going to fire on us today. They're not going to hurt anyone today. They're not going to stop what we got going on today. Thanks for your serving. We're here until 7:30. The curfew was at 8 o'clock. And we told the mayor, my brother, he's not here right now, but he got a call from the mayor. And the mayor said that he's going to have the police and the National Guard protect us today so we can civilly do this protest. So that we can show the world that we are not the ones that burned these buildings, but we are the ones that's going to rebuild them. Okay? So if anybody that is parked in this side of the parking lot of Target's lot, if your car is parked here, can you please move your car closer to the side of Cub? waa ciidamadii kaydka qaranka Mareykanka oo loogu talagalay inay magaalada xakameeyaan ayaa marka ay arkeen in magaalada ay degan tahay dadkii shacabkana ay ka qayb qaadanayaan qurxinta iyo bilicda magaalada ayay iyaguna bacda dhinacooda ka qaateen. taasi waxay ku tusinaysaa muwaadinimada waxa ay tahay iyo dalka sida loo jecel yahay. marar badan haddaad aragteen magaalada Muqdisho oo qarax ka dhacay isla habeenkii magaalada la nadiifiyey 2 maalin mise maalin gudaheeda magaalada dib loo dhisay goobtii la qarxiyey ama hoteelkii la qarxiyey. sidaas si la mid ah ayay sameynayaan muwaadiniinta Mareykanka. halkan 2 maalin ka hor waxay ahayd meel baaba'san oo dhibaato xooggan ay ka muuqato, laakiin dadka ayaa nadiifiyey, qurxiyey. qoraalladii lagu qoray lagaadada ahaa target centerka waxaa bedelay rinji cad oo nabad ka turjumaya oo la mariyey. halkan shalay iyo maalintii ka horeysay haddii aad daawanayseen waxay ahayd meel aad iyo aad aan la arki karin. nasiib wanaag inta aan socday waxaan la kulmay qoys Soomaaliyeed maasha Allah. waa aabba Soomaaliyeed iyo carruurtiisa. waan ku salaam marka hore waxaad ka qayb qaadanaysaan bilicda iyo soo celinta magaalada adiga iyo qoyskaadaba. ilaahay idin barakeeyo. bal ka waran magaalada Minneapolis. والله magaalada Minneapolis hadda maanta waxaa lagu jiraa kalin garayn. haye alxamdulillah rabtadii xalay waa yaraayeen. maanta waxaa loo soo jeesaday magaalada in la kalin gareeyo. maasha Allah. dhibaato la geystay in maaragtay la hagaajiyo. maasha Allah. waxaa maaragtay jooga cid kasta oo magaalada deganeyd oo nooc walba leh. maasha Allah. national guardkii waa halkaa jooga oo wax ka kalin garaynaya. oo nadaafadda ka qayb qaadanaya maasha Allah. adeer istaag. ilmaha dee hadda ilmaha waxaan u soo saarnay in ay ogaadaan magaaladoodii way meeshay ku dhasheen aad iyo aad inay maaragtay kale waxaan taariikh weeye ay taariikhda dhinaca fiican qayb ka noqdaan. maasha Allah. waa qoys Soomaaliyeed oo ka qayb qaadanaya bilicda iyo soo celinta magaalada. sidoo kale waxay fariin ay dirayaan oo ah in dadka Soomaaliyeed ay wanaagga jecel yihiin. waad mahadsantihiin. waxaad arkayseen qoyskaas Soomaaliyeed sharaf ayay tahay inaan la kulmo. halkan waxaa arkaysaa ciidamadii kaydka qaranka ee Mareykanka. nadaafadda ayay iyaguna ka qayb qaadanayaan. nadaafadda ayay ka qayb qaadanayaan. waa kuwaasaa. thank you. waad arkaysaan
weliba dhulka wax yar xataa way ka qaadayaan wax yar xataa way ka qaadayaan dhulka safiya waa maasan tahay way dhaafeen qoyskaasi laakiin coronavirus dadka waxaad moodaa inay hilmaameen safiya waxay ka mid tahay dadka caafimaadka ee safka hore kaga jira gobolka Minnesota gaar ahaan magaalooyinkani Minneapolis iyo St. Paul iyo magaalooyin ku hareeraysan in badan ayay ka qayb qaadatay wacyigelinta bulshada markii ay aragtay carruurtaasi waxay dareemi kartaa khatarta ay leedahay dhinaca kale coronavirus waa mahadsantaha safiya halkani waa xaruntii target center oo bilaqada iyo ay ka bilaabatay markii hore laakiin maanta ma jirto wax bililaqa ah iyo wax dhibaato ah jawiga uu degan yahay waa xaruntii la burburiyay hadda waad arkaysaa sida loo qurxiyey durbadiiba halkaasi waa calankiisu America kaafudka ayaa halkaas ka muuqda maqaayadda Soomaaliyeed oo halkaas First Cup ayaa halkaas kaga muuqata quruxley oo ah meel macaanka lagu iibiyo ayaa sidoo kale ii muuqata Target aad baan ku salaamay ma sha Allah Targetka wuxuu ku yaalaa Minnehaha iyo Lake Street ayuu ku yaalaa sidoo kale Jamila Jaamac JJ ayaa halkan iga muuqata live ku jirtaa Soomaa live ku jira taasoo ka xaga waad maadsantahay aniga live ayaa ku jira ma sha Allah deeqdar farxada ay tahay Jamilna kula kulmo yaabo ka war magaalada wallahi magaalada niyo aniga labadan bari ma soo bixin maanta soo baxay haye aad iyo aad batiiraanyo iyo calool xumo u noqotay inkastoo alxamdulillah aan ku farxay meeshan oo la wada shaqeynaayo oo la kilin gareeyo oo dadkii Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin aad qayb uga yihiin oo ayaguna dhinacooda wax ka kilin gareynayaan waxaan arkay gaarkii waxaan arkay gabdhihii dumarkii raggii kulli reer Minnesota xataa caruurtii xataa caruurtii oo Minnesota maanta lama kala harin waa la isla wada socdaa hal qof oo Minnesota ka maqan maanta waa yar yahay meeshaana wax ka dhaceen ma isdahaysid waxaan hadda maskaxdayda ku soo dhacday markaan arkay meeshii saa u burbursanay ee la dhahay laba bari ka hor Muqdisho iyo waxay noqotay iyo meeshii kale taxayd oo ayadan dagaal Baghdad maanta ma moodin xabad dhibaato inay ka dhacday because dadkoodii baa u istaagay kilin gareeyay soo celiyay quruxdii magaalada hadiiba dadkii oo waliba unity ah oo aan kala saarnayn ayaa soo celiyay imagine marka magaaladeena Muqdisho marka habeen walba wax lagu qarxiyo ama dad lagu laayo xataa wax kilin gareeya ma jiraan dadkaan inaan wax ka barano ayaan u baahanahay inaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ay wax bartaan oo ay wax fahmaan oo ay mataqaanaa ka qayb qaataan adduunyada si ay dalkoodina uga qayb qaataan waxyaabaha ka dhacayo ayaan u baahanahay deeqow markii hore hard broken baan noqday markaan imaaday laakiin oo meeshii wax ka dhacayeen maalmahan dhan gubanaysay laakiin markaan arkay nadaafadda iyo qiimaha iyo dadka aan hadda dhow qof aan la hadlay qiimaha ay mataqaanaa kalgacalka ay muujinayaan waxa way wax kasta way dhacaan laakiin dadka isku duuban sidaanay u kacaan Jamila Jaamac JJ aad baad maasan tahay farxad bay tahay kula kulmo thank you so much thank you Jamila JJ ayaa ahayd maanta Minneapolis banaanbaxa wuu ka socdaa laakiin
banaanbax ma ahayn midkii rabshadaha watay sidoo kale qof kasta oo banaanbaxaya waxa uu wataa xaaqin. Assalaamu calaykum. qof kasta oo banaanbaxaya wuxuu wataa xaaqin iyo bac madow wuxuuna ku gurayaa qashinka. halkan dadka live-ka ula socday Xogmaal Media ayaa garan kara siday ahayd shalay iyo daraad maantana waad aragtaa siday yihiin. waxaan idinka codsanayaa daawadayaal inaad shirgareysaan muuqaalkan oo live-ka aad u daawanaysaan. sidoo kale waxaan idinka codsanayaa haddii aad ku cusub tahay barta aan ku leenahay Facebooka Xogmaal Media inaad follow gareysaan, like saartaan, isla markaana muuqaalada inaad shirgareysaan. dadka naga daawanaya barta aan ku leenahay YouTube-ka iyaguna waxaan ka codsanaynaa inay muuqaaladan shirgareeyaan YouTube-ka Xogmaal Media ay subscribe ay saaraan. waad arkaysaa Soomaali ayaa ka qayb qaadanaysa. gabadha Soomaaliyeed oo islaamaysa aad baan ku salaamay. maasha Allah nadaafadda ka qayb qaadanaysa. maasha Allah gabadhaas walaashay ah aad baan u salaamayaa. السلام عليكم. ولا متعب. عليه السلام. Good man. Oromo community? Sudanese, mashallah, mashallah. Dadkan waa Sudanese community, mashallah. Sudanese community, yeah, mashallah. Today, what we did, we brought 3 big garbage trucks. Mashallah. Like the type that pick up the garbage from your house. We brought 3 of them and organized the cleanup here. So this entire place was full of garbage. Alhamdulillah, the garbage truck company, I know the owner, so he donated 3 garbage trucks, and we came here, and all of this was full of dirt, and now, mashallah, it's all Now clean. it's very clean, yep, Yeah, mashallah. and alhamdulillah, it was all organized by the Sudanese community here, and mashallah, like thousands of Americans from every single ethnicity came and helped, and it was beautiful. Thank It was absolutely beautiful. Thank you, my brother. Yeah. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. That's Sudanese community, mashallah. dadku qaybo kala duwan ayaad la kulmaysaa markii aad Mareykanka aad joogto. Sudan waxay ku taallaa East Africa. waxaana u rajeynayaa in waddankaasi isaga xataa uu dego. waa waddan aad iyo aad u qiimo badan. caruurta ayaa qayb ka ah aad arkaysaan. coronavirus waa la hilmaamay. waxaan rajeynayaa magaalada Minneapolis inay ku soo noqoto magaaladii qiimaha badneyd. daawadayaal muuqaalka shirgareeya waa idinka codsanaynaa shirgareysaan. haddii aad ku cusub tahayna Xogmaal Media barta iyo Facebooka iyo YouTube-ka ku leedahay inaad follow gareysaan, subscribe noo saartaan. waxaa si toos u tabinaynay maalmihii lasoo dhaafay mudaharaadyadaan. maasha Allah dad Soomaalida ayaa taagan. Assalaamu calaykum. qayb ayay ka qaateen. waddadan waa waddada trainka. maalmihii lasoo dhaafay wax shaqeynaya ma laha. bundadan hoosteeda shalay waxaa taagnaa ciidamada kaydka qaranka iyo shacab banaanbaxaya ayaa is hor taagnaa. laakiin waxaan la yaabay dadkii banaanbaxayay iyagoo banaanbaxaya oo shucuurtooda muujinaya ayay waxay soo qaateen xaaqin ay ku nadiifinayaan magaalooyinka. qof kasta oo Mareykan ahna waxa uu gacanta ku wataa agabka lagu nadiifiyo waddooyinka. caddaan, madow, muslim iyo qof aan muslim ahaynba diintoodaba ha haysto. waxaa laga midaysan yahay
sidaas ayaa loo wada shaqaynayaa. Waa nin madow ah iyo nin caddaan ah iyo dumar caddaan ah. bilaqada inay dhammaatay ayaad moodaa. waxaana la sheegay dadka wax bilaqaysanaya wax gubaya in markii hore ay ka imaanayeen magaalooyin ka baxsan Minneapolis. dadka magaalada nadiifinaya aad arkaysaana waa dadkii magaalada. qof kasto wuxuu u cararayaa halkii ay dhibaatada ka dhacday. ninkan wuxuu baryayaa dadka inuu nadiifiyo, dadka inay soo degaan isla markaa la nadiifiyo. We love y'all, King. We're going to continue to build this community back up where it's supposed to be. Thank y'all. We love y'all. Thank y'all. Thank y'all all. We love y'all. waa nin madow ah oo waddanka u dhashay. wuxuu dadka ku dhiirigelinayaa in la nadiifiyo. halkaas Twin Care Dental dhakhaatiir Soomaaliyeed ayaa ka howlgelaya isla markaana iska lahaa. waxaan rajaynayaa in khasaaro aad u xooggan uusan soo gaarin. halkan waa Wells Fargo. halkan waa moolkii bannaanka ka furnaa. moolkan ganacsiyo badan ayaa ku yaalay. ganacsiyadii waa la boobay isla markaana waa la gubay. hadda ayaa u dhowaanayaa. banaanbaxan wuxuu ku baahay guud ahaan dalka Mareykanka. halkaas dad muslimiin ah ayaa igaga muuqda maasha Allah. maasha Allah, that's Muslim community. halkan waxaa taagan telefishinadii Mareykanka oo toos u tabinaya. halkan waxaa ka socda nadaafadii. nadaafad xooggan ayaa halkan ka socota.
halkan waxay ahayd goob mool ah isku tashiga dadweynaha aad buu u wanaagsan yahay dadweynaha markay kacaan wax walba ayay qaban karaan wax walbana way burburin karaan wax walbana way dhisi karaan waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed in ay wax ka bartaan nadaafadda shacabka Mareykanka ee halkan ka wadaan haddii lagu dhawaaqo hal maalin oo nadaafad ah guud ahaan dalkeena Soomaaliya wuxuu noqon karaa waddanka ugu quruxda badan caalamka farxii ciise Soomaalidu qayb ay ka yihiin Soomaali badan ayaa soo arkay haddii aad dib ugu noqoto live-kan bilowgiisii hore waxaan soo arkay qoysas badan oo Soomaaliyeed xitaa carruur ayaan soo arkay dumarkeeni ayaa soo arkay wiilasheeni ayaa soo arkay oo nadiifinaya sababtoo ah goobaha nadaafadda ay ka socoto aad bay u tiro badan yihiin Thank you. waxaad daawanaysaan live xogmaal media si toos ah ayaa u daawanaysaan haddii aad naga cusub tahay waxaan kaa codsanayaa inaad follow gareyso isla markaana aad share gareyso muuqaaladan dhowaan waxaan tegi doonaa faras magaalaha Minneapolis halkaasi oo lagu sheegay in banaanbax ay ka soo qayb galayaan in ka badan 10,000 oo qof lagu qaban doono أحمد حاجي بولة ها مظاهرات كهذا هو استاجي سيدنا أي مظاهرات كسعودة dadka iyagoo mudaharaadaya iyo haddana ka qayb qaadanayaan nadaafadii shucuurtooda ayayna muujinayaan laakiin waxaa lagu ballansan yahay faras magaalaha Minneapolis in mudaharaad nabadeed dadkani siday u socdaan ay halkaasi tagaan helicopter ayaa halkaasi heehaabaya askartii dilka geysatay tiro ahaan waxay ahaayeen 4 laakiin mid kamid ah ayaa la xiray laakiin dadku waxay leeyihiin waxaan doonaynaa in la xiro 4taba 4ta in la xiro ayaa la dalbanayaa afarta booliska ah in la xiray ayaa la dalbanayaa isla markaana la xukumo daawadayaal xogmaal media daawanaysaan anigoo deeq darajo ah ayaa idiin soo tabinaya waa live banaanbaxan wuxuu sidoo kale ku sii siqay guud ahaan gobollada dalka Mareykanka
waxaan tegi doonaa goobaha kale ee banaanbaxa uu ka socdo sidoo kale waa muhiim inaad aragtaan wanaagga ay bulshada samaynayaan waayahay asxaabtana daawanaysa waxaan tegi doonaa faras magaalaha Minneapolis oo qadar 5 daqiiqo ah ay jirta laakiin maanta way ka duwan tahay maalmihii hore wadadana aad bay u xun tahay marka waa ku soo noqon doonaa waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalada share gareysaan isla markaana flow gareysaan markii aan tago halka uu banaanbaxa ka socdo waan ku soo noqonayaa aad baad mahadsantihiin waa deeq darajo oo idin leh